deeqdan geel oo loogu talagalay in ciidamada xoogga dalka qaybtooda ku sugan magaalada Gaalkacyo ay bulshada kula qaybsadaan farxadda ciida ayaa waxa ku wareejiyay ururka madasha iyo isdhexgalka nabadda gobolka Mudug. Madasha lagu wareejinayo geelan oo goobjoog ka ahayeen mas'uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka Mudug ee labada dawlad goboleed ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay Qorane Maxamed Cabdulle Axmed Faratooyo oo kamid ah mas'uuliyiinta ururka nabadda iyo isdhexgalka bulshada gobolka Mudug. أنا ما شاء الله دي صدقك اللي يقول كمدوك وعرنا ما تنا مناسبات أنا كوري شنو قبشون إنه أنا ما ملك يسراكيشو عيدك حق دارك سؤالان قارعان قيبتا مقالة Gaalkacyo أنا لو إذا فرحت يرايرينتا كنا عيسينا جيل كواس أو طلق لنا يبريكوا عيدان عيدانكو بعدها يعني عيدك أمانك سوى هي أنا ورنا ammaankeena iyo magaalada iyo gobolka ilaalinayay si ay u dhiiradaan arrimahooda amni maanta waxaan halkan ku wareejinay ciidamada militariga Gaalkacyo oo isku dhafka ah iyo booliiskaba xoolo aan ugu talagalnay inay ku udxiyeystaan oo farxadda ciida ay ummadooda kula wadaagaan waxaan runtii ugu dardaarmanaa ciidankaas in sida loogu talagalay ay u isticmaalaan waxaan rajeynaynaa in bulshada inteeda kale ayaguna anagoo og inaysan baahidooda wax badan ka qaban karin laakiin waxaan rajeynaynaa in bulshada inteeda kalena ay ayaguna wax uga soo qayb qaadan doonaan gaashaanle Cali Naasir Abdi Faarax abaandulaha ciidanka ururka gulwada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtooda ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa isaguna ka mahad celiyay xoolahan ay ku wareejiyeen ururka madasha iyo isdhexgalka nabadda gobolka Mudug. aad baa ugu mahad celinayaa dhalinyarada madasha isdhexgasha dhalinyarada sida ay ciidanka ugu garteen inay farxadda awlaad wadaagaan ciida oo ay u guddoonsiiyeen geela nool aad baa ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay ilaahay ajar iyo xasanaad ka siiyo Allah noo barakeeyo aad baan ugu mahadsan yihiin ciidanku inuu aad amni ka shaqeeyo wax walba iska kaasho la dhiirigeliyo oo aad bay maaragtay waxa weyn oo niyadooda iyo magaciisiisa wax uga qabanaysa Maxamed Xasan Xuseen Waloore gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug ee Puntland iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiri Isxalaya iyaguna ku amaanay dhalinyaradu kaalinta ay ka qaateen nabadda iyo sida ay u dhiirigelinayaan ciidamada xoogga dalka iyagu kaalin laba ilaawana ka soo qaatay amniga iyo nabadgelyada xilligan ka jira magaalada Gaalkacyo tan iyo wixii ka dambeeyay sanadii 2016 nimankan dhalinyarada iyo madasha waxaan aad uga mahad celinayaa sida wanaagsan ay nabadan uga shaqeeyaan horumarkan uga shaqeeyaan mar walbana waxaan ku bogaadinayaa sida ay u taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin waxaad u jeedaan sida dhalinyaradu niyadeen ku hayso adinkana waxaan ka rabaa inaad niyad ku haysiin dalkiina iyo dadkiina iyo nabadda dhalinyaradu ay shaqeynayaan la shaqeeyeen sida niyadeen ku hayaan oo ay ciidankiina idinka ku kalsoon yihiin inay ku kalsoonaan oo ay ku seexdaan ku toosaan ku hamiyaan mar walba leeyihiin waxa jooga ciidan amniga sugaya taas ay ka doonayaan Cabdirasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo.